wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka soconayo deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dagaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku bilowday qaraxyo ay ku qaaday saldhigyada ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ay ku leeyihiin deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in dhinacyada isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo la soo warinayo inuu jiro khasaare xooggan oo soo gaaray labada dhinac. wararka ayaa intaa ku diraya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday deegaanka Masaajid Cali Guduud lagu dilay xubno badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka inkastoo aan weli si rasmi ah loo helin tirkoob sax ah. wararka ayaa intaa ku diraya in diyaaradaha dagaal ay duqeymo culus ay ku garaacayaan deegaanka Masaajid Cali Guduud iyo duleedkeeda. ma jiro weli wax warar ka soo baxay dowladda Soomaaliya kaas oo ku aadan inay faahfaahin ka bixiso qasaraha ka dhashay dagaalkan ka soconaya deegaanka Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa mararka qaarkii weerar gaadmo ah oo xilli hore oo subaxnimo ah ku qaada saldhigyada ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka. ilaa ay hadda waxaa muuqata inaan wax laga baran weerarada isku xilliga dhaca ee kooxda ku bartilmaamaysato ciidanka dawladda. weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada dawladdu ay howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka wadaan gobolka Shabeellada Dhexe iyadoona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sugan yahay degmada Cadalle halkaasna uu ka wado abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda waxaana dhowaan bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab.